barnaamijkan wacyigelinta ah oo ay fulinayeen urur gabdho ah oo iskood isku xilqaamay laguna magacaabo ururka ka hortagga gudniinka fircooniga iyo wacyigelinta bulshada ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabay kaamamka magaalada Beledweyne hawshooda wacyigelinta ah ee bulshada looga dhaadhicinayo khatarta gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeed. gabdhahan oo saaka xafiiskooda aan ku booqanay ayaa u sheegay TV-ga qaranka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa u istaagay sidii bulshadooda ay ugu wacyigelin lahaayeen inaan gabdhaha lagu samaynin gudniinka fircooniga kaasi oo bulshada Soomaaliyeed ay u aragto arrin khatarteeda leh. mid ka mid ah kaamamkii ay maanta gabdhaha wacyigelinta ka fuliyeen ayay kula kulmeen hooyooyin kaamka deganaa iyagoo u sheegay in gabdhaha laga daayo gudniinka fircooniga taasi oo iyana si weyn ay u soo dhaweeyeen. مريم عبد الله حسن قدوميها قبلها أورك كهرتجا جنين كفرعوني جاي وعي جلنت بالشدة أي SNT في أشرح ذي وجدده كان ما أنت يوصل بغدين. وما حسن ده ولا وجدده كلن كنا وحكي لماهن وحن هل كان يوصل بغنى وكلي وحي تايكو أنا هرتن وجانو بالشدة وحي كمثل ده هي جنين كفرعوني جارهان دمر كصوماليات إنك استعد كان يبدين دمر waxaan u soo booqanayna waxa weeyaan hadii aan dheelayno bulshada aan wacyigelino ama inta gaari qaadanaan magaaladii dhaxmarno inta hadda dumar meeshan aan ku helnay ama aan kula kulano kale maanan heli lahayn waa fursad qaali ah oo aan ka faa'iideysanaynay kaamkana si aad iyo aad ayaana loo ka soo dhaweeyay waana ugu mahad celinayaa dadka jooga kaamkani marka booqashadeena waxa weeyaan waa booqasho maxay tahay wax badan inoo soo faa'iidinayso iyagana wax baan ka faa'iidnay oo maxay tahay dad badan oo meeshii isugu yimid oo fikrado kala duwan aan ka qaadanay weeyaan inagana wax bay naga faa'iideen oo wax badan ayaan u faa'iidinay marka aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo kaamkani oo ku magac dheer kaamka bilan oo kamid ah kaamamka ku yaal magaalada Beledweyne waana jecelahay sidaan oo kale inaan booqdo kaamamka kale ee inoo dhiman waxaan rajaynayaa in sida inoo soo dhaweeyeen kaamkan dadka ku nool inay dadka kalena ayagana inoo soo dhaweeyaan. qaar ka mid ah haweenkii ku sugnaa kaamka maanta wacyigelinta laga fuliyay ayaa iyaguna ka hadlay wax ay ka fahmeen gudniinka fircooniga ah. ururka ka hortagga gudniinka fircooniga maadaama ayna soo booqdeen walaalaheena waxyaabo aan jahli ka ahayn ayayna fahansiiyeen waana ku mahadsan yihiin. marka hadda wixii ka bilowdo barnaamijkan wacyigelinta ay gabdhaha ay wadaan ma la fahanteen oo ma la qaadanaysaan? haa waan la fahanay waana la qaadanaynaa waxyaabahaas jaahil baan ka aan haddana way ayna fahansiiyeen. waxa waaye waxaan fircoonigan gudniinkan anaka oo jaahilaan ka ahayn gabdhaha walaalaha oo wadana hooyooyinkan u hay oo noo sheegay maanta waa mahadsan yihiin waxa waaye hadda waana ku mahadsan yihiin waana hadda ka bacdi waana digtiinaan ka qaadanaynaa go'aanana ka gaarayna haduu ilaahay yiraaho waa mahadsan yihiin marka waxaan rabnaa haduu ilaahay yiraaho inay siday ayaga hadda ay noo soo booqdeen waa ku mahadsan yihiin marka waxa la rabaa haduu ilaahay yiraaho inaan aan taasoo kaleenta aan ka qayb qaadanaan doonayna haduu ilaahay yiraaho. waa markii ugu horeysay oo gabdho si iskood isku xilqaamay ay hawshan wacyigelinta gudniinka fircooniga ay ka fuliyaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. gudniinka fircooniga ayaa ah caado dhaqameed foolxun kaasi oo aan sal iyo raad midna ku lahayn diinta Islaamka. Cabdi Wali Xasan SNTV Beledweyne.